habeen wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya qodobada aan caawidan hayana waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka socday dawladda Mareykanka maxay ka wada hadleen isaga iyo saraakiishaasi waa in la wadaagi doonaa iyo sidoo kale mucaaradka Soomaaliya oo madaxweyne Dani ka dalbanaya waxay ka dalbanayaan aan dhahe in uu mobilka ka qabto shantii maalmood ee la soo dhaafayna wararku waxay sheegayaan in madaxweyne Dani uu ku dhageysanayo mucaaradka Soomaaliya taleefanka qodobkaasna waa in la wadaagi doonaa si faahfaahsan sababta ay uga dalbanayaan madaxweyne Dani in mobilka ka qabto iyo waxa ay ka rabaan ayaa in la wadaagi doonaa iyo sidoo kale qodobo kale dheeriya oo Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka ayaa in la wadaagi doonaa balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkana la iga saarto waa mahadsantiin haddii aan ku bilaabo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu maanta ka soo degay magaalada Boosaaso muddana safar ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa isla maanta wuxuu magaalada Boosaaso ku soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka socday dawladda Mareykanka iyo sidoo kale safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka aan dhahe safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo sidoo kale saraakiil badan oo Africom ka tirsan ayuu madaxweyne Dani ku soo dhaweeyay magaalada Boosaaso saraakiishaas ayaa dawladda Puntland waxa ay aad ugu amaaneen dagaalka ka socda Bura Calmiskaad ee lagu jiro kooxda khawaarijta ee Daesh waxa ay ku amaaneen guulaha waaweyn ee Puntland ka gaartay muddada kooban ay kooxdaas kula dagaalamayeen sidoo kale ciidamadan ayaa aad u dhiirigeliyay ama amaan kala dulacay ciidamada geesiyada ah ee Puntland ee lugta kula dagaalamaya kooxda argagixisada ah ee Daesh waxa ay sheegeen in marka loo fiiriyo deegaanka ay ku dagaalamayaan ciidamada difaaca Puntland oo ah deegaan buuraley ah oo difaacyo badan iyo guusha ay ka gaareen kooxda Daesh oo iyadu muddo halka fadhiday inay ciidamada difaaca Puntland ay mudan yihiin in la dhiirigeliyo laguna amaano shaqada wanaagsan oo ay ka qabteen waxay dhaheen amaanka Soomaaliya iyo sidoo kale badda cas iyo sidoo kale amaanka caalamkaba waxay sheegeen in nimanka Daesh ee halka ku dhumaalaysanayay ay ahaayeen khatar caalamka ku koraysa iyo sidoo kale gobolkaba waxa ay sheegeen marka laga yimaado duqeymaha iyo caawimaadda ay ciidamada Mareykanka iyo saaxiibada kale caalamka ay la garab istaagan yihiin in ay markii ugu horeysay ay arkeen ciidamo Soomaaliya ah oo ay caawinayaan ama ay garab taagan yihiin oo sidaasoo kale u dhiiran masaafada ay jarayaan ayay la yaabeen ciidamada difaaca Puntland iyo sida ay u dhiiran yihiin kooxda Daeshna ay u eryanayaan guulaha muhiimka ah ay ka gaareen ayay la yaaban yihiin madaxweyne Dani iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada difaaca Puntland ayay ku amaaneen dadaalkaas waxay sidoo kale ballan qaadeen in ay sii garab taagnaan doonaan inta deegaanada Puntland laga sifayn doono dhammaan kooxa argagixisada ah ee ku dhumaaleysata ama ku dhumaaleysta aan dhahe deegaanada Puntland dhanka kale madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sida ay wararku sheegayaan ku dhageysanaya mucaaradka Soomaaliya taleefanka waxaana la sheegay in mucaaradku ay Saciid Dani ka dalbanayaan in uu shir ay ku ballansanaayeen uu u qabto sidoo kalena uu u mudeeyo waqtigii la qaban lahaa shirkaasna ay madaxweyne Dani ka wada hadlaaneen balse sababta jirto aan la shaacin madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gabi ahaanba mucaaradka ku dhageystay taleefanka waxayna mucaaradku wadaanin ololaho ay Xasan Sheekh culays ku saarayaan si uu doorasho u qabto dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa isagu hadda wada inuu ku darsado ama 2 sano inuu kororsado ayuu hadda mashruucaas ayuu ka shaqeynaya ayaa la leeyahay baarlamaanka Soomaaliya oo 20ka bisha furmi lahaana waa uu baaqday waxaa la sheegay in 19ka bisha baarlamaanka Soomaaliya uu furmi doono ajandaha madaxweyne Xasan Sheekh uu ka leeyahay in 19ka bisha uu furmana waxa weeye in uu baarlamaanka Soomaaliya uu horkeeno in 2 sano loogu daro xukuumaddiisa si doorasho qof iyo cod dalka uga qabsanto qaar ka mid ah xildhibaanada arrintaas waa ka soo horjeedaan halka qaar kalena ay u ololeynayaan balse 29ka bisha ayaa la eegi doonaa mucaaradka Soomaaliya oo iyagu in badan shirar ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay door bidayaan in magaalada Garowe ay shir ku qabtaan weyn oo mucaaradku ay kaga arrimsanayaan sidii madaxweyne Xasan Sheekh uu doorashada u qaban lahaa dhanka kale
madaxweyne xasan sheekh ayaa isagu waxa uu doonayaa in uu fashilmo shirka uu mucaaradku rabaan inay ka qabsadaan magaalada Garowe halkaas uu haddii uu madaxweyne dani aqbalo in mucaaradku ay shir ku qabsadaan magaalada Garowe culays saari doonto beesha caalamka iyo sidoo kale dadka Soomaaliya daneeyana ay il gaar ah ku hayn doonaan shirkaas intaas ayaa kusoo gabagabeynaa daawadayaal barnaamijkan caawa haddii aad halkan nala soo gaartay wax kaa codsanaya inay YouTube kusoo birto subscribe dhahdo muuqaalka like saarto kamarelkana furato